aad baan ugu diirsadaa waa waxyaabahan jecelahay inaan arko. jaamacadda Adnaadan ayaa tartan cilmiyeed u qabatay ardayda sanadkani ka baxaysa dugsiyada sare ee dhigata dugsiyada kala duwan ee magaalada Hargeysa. ardayda tartanka loo qabanayay ayaa ahaa 200 oo qof oo ka koobnaa 100 wiil iyo 100 hablood. tartankan ayaa waxa uu socday intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. xiritaanka tartankaasi waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jaamacadda Adnaadan Marwa Adnaadan Ismaaciil, qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare, macallimiin iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda. ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay Cabdisalaan Cabdilaahi Cali, Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud, Khadar Cabdiraxmaan Ibraahim, waxaana ay ka warbixiyeen tartankaasi. barnaamijkan haddii aan in yar iftiimiyo waxa uu daaranaa in ay fursad u helaan ardayda ka baxaysa dugsiyada sare ee dalku, khaasatan dugsiyada sare ee Hargeysa, inay fursad u helaan in ay tijaabiyaan kartidooda, sidoo kale loo koobo casharadii faraha badnaa ee ay qaadanayeen sanadkii u dambeeyay. macallimiin karti badan, dadaal badan, aqoon leh oo runtii waxa weeye nafhur aad iyo aad sameeyay ayaa barnaamijka bixinayay. sidoo kale hawlwadeennada jaamacadda Adna waxa iyaguna ka qaateen kaalin laxaad leh iyagoo markasta barbar taagnaa barnaamijka. jaamacadda Adnaadan waxay diyaar u noqotay inay ardaydaasi ka kabto isla markaana ay dib u eegto wixii ay dhigteen kalana shaqeysay imtixaanadii shahaadiga ahaa. marka maadooyinka jaamacaddu ay ardayda ka kaabaysayna waxay ahaayeen maadooyinka sayniska iyo Englishka, waa biochemistry, physics iyo English. waxaa lagu wargeliyay in programkan ama barnaamijkan ay ka faa'iideysan karaan dhammaan ardayda caasimadda. tartanka waxa uu bilaabmay Saad Cabdiraxmaan idin sheegay bilowgii Ramadaanta shaacintiisii iyo diiwaangelintiisii, laakiin maalintii koobaad ee uu dhacay waxay ahayd 7 Ramadaan ma 29 Maarch ku beegnayd, waxaanu soo gabagaboobay 22 Ramadaan oo 13 Abriil ahayd. wareegii koobaad group kasta oo ka kooban 20 xubnood waxa ka soo baxay 5 qof oo u sareeya. marka 5 group oo min 5 waxa soo baxay 25 inan iyo 25 hablood. iyaga ayaa finalka tartankiisa ugu yimi, waxaana guuleystay 5 hablood iyo 5 inan, iyadoo si gaar ah 10ka loo abaalmarin doono. su'aalaha waxaa la weydiinayay group kasta 10 su'aalood oo laga keenayay 5 maadooyinka biology, chemistry, maths, physics iyo English. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Cabdirashiid Ashari oo hore u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada, imikana kormeeraha guud ee dugsiyada Salaama. marka waa in la dadaal la muujiyaa, ilaahayna la tala saartaa, gaar ahaan maalmo khayr qabaynu ku jirnaa, gaar ahaan caawa waa 27kii. ducayso oo tawaakul ha samaynin, tawaakul. dhinaciisasna halkaasi waxaa ka hadlay mid ka mid ah ardayda sanadkan dhammaynaysa jaamacadda Adnaadan, kaasoo la dardaarmay ardayda ka soo baxaysa dugsiyada sare. maanta jaamacaddan anigu aan siinayo kan haanu taaganay dhayadhayadii ciyaar halkaa kumaanaan soo gaadhin. waxaan ku soo xareysanay jaamacadda arday 200 gaadhaysa, imkan waxaan ku kala jibinaa maxay 20 arday baan ku kala jibinaa. markaa hawl iyo hayaan dheer oo adag bay sugaya jaamacadda. haddaa is leedihiin ardayda waxa la isugu yeeray maalmo dhawte inay jaamacadda dadka soo xareyso, xareys ma jiro, sida loo wado 25 arday ma ka kala jibinayeen. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha jaamacadda iyo madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda, waxaana yidhaahdeen idinka iyo 700 arday ee barta tartanka kala qayb galay iyo ummadda reer Soomaaliland dhammaantood waxaanu ugu yeeraynaa aqoon la hubo iyo management la isku haleyn karo oo qofku isagoo noloshiisa la shape gareeyay oo sidoo ka yimi isagoo aad uga duwan oo nolosha ku tartami karaya ayuu meeshan ka qalin jabinayaa. guul baan idin rajaynayaa. tartankan halkan ka dhacay ee aad maasha Allah intaasoo arday ay ka qayb gashay, waxaan aad iyo aad loogu farxo weeyaan. waad ku ammaanantihiin hooyo, aad baan ugu diirsadaa waa waxyaabahan jecelahay inaan arko. waxaan jecelahay dadkayga oo wanaagsan oo wax bartay oo wanaag ku tartamaya oo kor u kacaya oo aqoontoodu ay durkayso oo wanaagsananayso adduunka soo gaadhaya. marka waxaan leeyahay hooyo halkaa ka sii wada. waxaan doonayaa inaan in yaroo dardaarna idin siiyo hooyo. iminka waxaad taagan tihiin albaabkii aad ku dhammayn lahaydeen ama aad imtixaan ku geli lahaydeen aqoontiinii dugsigii sare. markii hore arday baad ahaydeen, dugsiyaad arday ka ahaydeen,
markaad ka baxdaan imtixaanka insha Allah way idin guulaysanay waxaydin u tartami doontaan inaad jaamacadaha aad gashaan qof walba wixii uu jeclaa ee uu wax u soo baranayay cilmigii farsamadii uu doonayay ayuu tartan u soo gali doonaa jaamacaddii aad gashaaba waa jaamacaddii kale waanu isku wada mid baan ma kala wanaagsanine waxaa soo ammaana waa maalin yar oo la yara kormeerin weeyaane waa waxa adigu dadaalka aad geliso jaamacadaad gasho sidaad ugu dadaasho oo aad adigu naftaada ula tartanto ayuunbaad wax ku gaari doontaa marka waxaan doonayaa inaad horta ogaataan jaamaciyiin haddaad noqotaan inaad dad mas-uula noqon doontaan gunaanadkii halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey 50kii qof ee ugu sarreeyey tartankaasi halka 10kii qof ee ugu sarreeyey tartankaasi oo ay kala hayeen 5 hablood iyo 5 wiil la kala guddoonsiiyey deeq waxbarasho iyo abaalmarino kala duwan guulad cunaabi MMTV